الإخوة حمد على استيقظنا إن لو داقو دولة حمود وما أنت عن لكل مي حمد شو من الميل وقبنا الذي تبتك القرآن كالودي يعني مركز صدح عارهن وعن لكل مي وحمد على هاي إن لو داقو ذلك كله أريد أوري وحوها markii la diyaarinayo meesha tartanka lagu qabanayo waxay meel iskoola oo arday wax ku dhigato ka kuraas yar oo adag baa taali inta badan marka kuraas xoogaa waaweyn oo waasic oo qof ku nasan kara waxaa la yidhaahdaa loo geeyo culimada maadaama waqti dheer ay fadhinayaan marka kuraas waaweyn oo culus baa loo qaaday marka saddex sheekh bay ahaayeen oo qolba sheekh baa ku jiray sheekhan waxaa u yaalla kursi weyn oo waasic ah ardaygana maadaama isu wax badan safadhiyeen kursi yar baa u yaalay dabeedna waxaan u soo galnay culimadii mid ka mid ah oo kursigii weynaa iska fogeeyo meel dhigay wuxuu soo qaatay kursigii ardaygu ku fadhiyay mid lamid ah markii la weydiina wuxuu yidhi qofka qur-aanka ilaahay akhrinaya kursi ka dheer ama ka weyn inaan ku fadhiisto waayo cuntayn weys وأنا الشيخ قارئ دكتور قراءات أو دكتور في القراءات مدينة منوركين يعني قاس وحوت الصي كرسي لو فريستو يمجع علاقات إنه كوي هاي كتاب كإلهي يقف كحنبارسن ولا احترامه يعني كرسي يستقف جيي إن ويسوء أركو إن ويستقف ككر أرض القرآن كأخريني وهذا الكإلهي أخريني dadka ummadda diinta hoggaanka ugu ana iyaga laga rabaa in tawaaduc laga arko ardaygaas markuu arko ninkii sheekha ahaa oo ka sareeyay kursigii iska fogeeyay uma baahna in la wacdiyo laakiin cashar wuxuu qaatay inay mudan tahay kitaabka ilaahay iyo quraanka in la ixtiraamo waxaa kaloo laga fahmi karaa qofku inuu meel weyn ku fadhiisto kursi weyn ama baabuur weyn uu qaato ama xogaa la buunbuuniyo inaysan ahayn inuu qof masareeye yahay laakiin macnaha in lagu gaadho hadba qadarka adigu aad siiso kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sida aad u tawaaducdo hoos isugu dhigto baa ilaahay ku karaameynaya subxaanahu watacaala qodobkaas waxaa ta koowaad ta labaad gabadh ka mida waalidiinta oo cunug wadataa baa waxay nooga sheekaysay waxay tiri horta qur-aanka waad hagaajiseen waxyaalo fara badan oo waddanka dadku qabsadaan baa jira maxaa inoo diiday innaga waxay tiri maalintooda deris baan nahay niman mexican ah waxaan arkay iyagoo ururinaya carruurtoodii oo iskoor banooni bay u diyaarinayaan anna waxaan ku niman deris baan nahay 5 carruuran wataa ma ay ku dartaan keen waa kugu daranaaye 5 carruurta ahaaba waxaa la siiyey banoonigii iyo lebiskii iyo kabihii markaas waxa lagama rabo markaas waxaan sidii war Soomaali maxaa looga waayay in kulli intaanba waxaa laga dowladdu bixisay dad intay saan yeelaan oo carruurta noo ururiyaan oo dhar bilaash siiyaan oo banooni bilaash siiyaan oo kab bilaash siiyaan arintan ka fikireetid in baa waxaan ku iri ولكن أنت عن كشقين أنت دولة كسوق قادم أنا عروض أورودنا كشقين ثم وسوق هذا نايو هذه كلها كشقة سنة فقاسة البلد كقول عروض محن كوك أنا ما أركش ولا كوك أنا هو حاسة عروض على عاوية الله المستعان وما هو حامنا إنه أردك في جنس مثل حقا يتبنقع محن أنا يقول شره محن كفائدة مدًا وأساسيننا والعروض محن فائدة وجره يدك maxaa faa'iido ugu jira umad ka fikiraysa nin kasta leeyahay haduu soo baxo maxaa aniga igu jira laga wada fikiray dadna xitaa waxyaalihii bayska ahaa bay noqotay in dadka oo islaam ahayn oo carruurtoodu ku caawinaya in inaga meeshay ahayn in ku ilaalino caqiidadooda iyo iimaankooda waxa bilaashka ah in qof walba uu yiraahdo talaabadan aan qaadayo horta shakhsiyan maxaa aniga igu jira markay baashu meesha gaadhana umadu anaaniye gashana weligeed meel gaari mayso waa taa hadda ay keentay Mexican inaan wax bidno oo ku faraxno taasna qodobka labaad baa
qodobka saddexaad wuxuu ahaa nin ka mid ah ardaydii macallimiinta keentay baa waxaan aad ula yaabnay ardaydiisu aad ardada kale xoogaa ka yaraha duwan qaabka u socdaan iyo doona waan wareysanay wuxuu yidhi meesha aan ka imi masaajidka aan ka imi waxaa ka taliya oo maamula yuudka qur-aanka iyagaa tujiya marka afurka la qaybinayo iyagaa qaybiya shaqada masaajidka iyaga mas-uulka ah ramadaanta waxaanu ururinay 22-keedii lacagta ugu badan waxaa ururi bixiyey niman dhalinyaro ah hal qof ay kuma jirin waxaa nooga casibanaa weeye nimankiina tujiyey baan damca inaan lacag siino sare maxaa noo siinaysaan lacagta ba idinkaanu shaqo idiin qabanay bise shaqa naga dhexaysaan qabanay inaan qur-aanka tujinno miyaa lacag nagu siinaysaan ma qaadanaya dhahan wuxuu yidhi waxaan samaynay marka aan dhalinyarana wax ka saxano annaga waxaan uma sheegno waanu isugu yeedhnaa 2 group baan u qaybaynaa waxaan idhahnaa arrintan bal ka soo baaro oo kasoo niqaasha waxaan u dirnay buu yidhi islaamku muxuu qabaa ma qofka muuqaalkiisa kore in diintu ka muuqato mise qalbiga inay ka muuqato dadna 2 qolaala kala noqon qola kasta waxay samaysay baaritaan axaadiisi ayday keentay qola waxay dhahaan maya ee qalbiga muhiima in qofka la ilaaliyo qolna waxay dhahaan maya ee muuqaalkuna waa muhiim nin baa u dhexeeya dhexooda charge u ah oo dhalinyaro ah haye adu adilladaasaa keentay adna kuwanaa keentay uu dhexdhexaadinaya dadna waxaa la isla qaatay in qalbiguna muhiim yahay muuqaalkuna muhiim yahay markii la isla qaataa waxaad sidaa tahay muuqaalkeenna oo dhawanu islaamku ekaada kii tima dheeraatimu soo gaabiyey kii dharka qaabin wata dharkii soo qaatay iyaga waxay isku qanciyeen diinteennu inay sax tahay in muuqaal sixi kaa muuqdo marka wuxuu yidhi annagu waan ka baxnay inaan dhalinyaro wacdino laakiin waxaanu ogaanay dhexdooda marka la isu diro iyagu inay isqancin karaan diintiina soo baari karaan qofkiina la sixi karo iyaduna waa tusaale kale oo muhiima in dad dhalinyaro ah oo wax qaadanaya oo wax fahmaya adiga kaa qaadan maayo maxaa yeele qaabka u hadlaysid iyo luqadda aad ku hadlaysid iyo waxaa laga maanta inuu fiirfiirinayo ereygaasi sax waxbaa ku jira iyo luqadiis ma fiicinayo laakiin ka yara isfahmayaan inta la soo wada niqaasho baa waxaa lii horta inagu ma diinteenna wax ka qaadanaa mise bay-ada aan ku jirno waxay isku raaceen mayde diinteenna asala marka waxa bay-ada xagga naga dhigaa layidhi waxay taasi muujinaysaa marka haddii la doonayo dhalinyaro in la saxo waa in la helaa cid luuqadooda la taqaano waa in la helaa iyaga in niqaashka loo diro haddan masaajidka waxaan garanayaa radaanti joognay dhalinyarada ima jirtay timo weyn waa timo weyn yahay masaajid miyaynu ka caydayna maseynu ku haynayna innagu waxaan ku hayn karnaa meeshan dadkan qaabka lagu qanciyo ee waddanka waxa lagu qanciya ah inaynu mid lamid helno iyo inaynu fahano wartimahan way wada mushkila ninbaa waxaa laga xukulay wiilkii nafta u keenayo si kasta diinmu kaamin lahayd oo dharka mu ku qabtaa maya timahaasan ka kari laha oo dee nabigaa timahan sii daysan jiray waa sunne ah timahan la sii daysto waaba sunne ah waxaan garanaya markaan habeenkii ugu dambeeya waxaan ku tukaday masaajidka siyaata ramadaanka ninbaa wuxuu waxaan kuu geynayaa masaajid tahajudka dhalinyaro keliya ku tukato masaajid baan tegey kawdi iyo barkii hal qof oo 20 kawdi ma joogin kulli dhalinyaro ahay ninkana tujinaya timihiisa weynaanta waa la yaabaysaa laakiin qur-aanka uu akhrinayo waxaa isleedahay ilaa waa beriga mawado subxaan allah waa inaan ogaanaa innagaa carruurteydii daaqadda ka saarnay innagaa meesha ka saarnay innagaa fogeynay waynu heli karnaa carruur badan oo hagaagta laakiin waddadeedana aan marno odayaasheenna taalay hal iska fadhiisa reeraha loo daawo salaam